kolay garatay codkiisa xambaarsan dareenka laguna laray codka ka soo baxaya xargaha cuud fanka iyo suugaanta. kolay garatay codkiisa xambaarsan dareenka laguna laray codka ka soo baxaya xargaha cuudka watana qaabraaciisa gaarka ah ee isagu aabbo u ahaa asaaskiisa sidaasna taajka loogu saaray boqorka cuudka iyo fanka Soomaaliyeed. Allah ha u naxariistee Maxamuud Ismaaciil Xudeydi waxa uu ku dhashay baadiyaha magaalada Berbera sanadku markuu ahaa 1928 kadib hooyadiis ayaa kula laabatay magaalada Cadan isagoo ku koray waxna ku bartay kana bilaabay geediga fankiisa. Waxa uu ahaa qofkii ugu horeeyay ee Soomaali ah oo ku guuleystay bilad dhinaca fanka ah kadib tartan faneed lagu qabtay magaaladaasi Cadan sida uu sheegayo. marka anigu kamana filayo mana joogo meesha ودي قفصي وتقوليسنيسا ما أنا هين حب سنتي مش مو قبول كذي وشرابي والله قاد عرب كي مسك هذا يبايلي محمود إسماعيل الحديدي العدني يقولي نلي لا عبد الله والسمك عشي عبد الله أول ورد عني سبورتر كيكا وانتم وصل بحيث شكك هذا الميكروفون كويلي محمود إسماعيل الحديدي يا رسول الله عليه العدني دي وكذا وانت جاي intii uu fanka ku jiray macallinkii cuudka ahna boqorkii waxa uu fanka kaga qayb qaatay heese wadani ah oo lagu la dirirayo gumaystayaashii iyo kuwa jacayl ah oo ay aad u jecel yihiin bulshada Soomaaliyeed dhageysigooda isagoona fanka inta uu ku jiray ku noolaa magaalooyinka Muqdisho, Hargeysa iyo magaalada London halkaasi oo uu ka furay dugsi faneed dhalinyarada lagu baro fanka Soomaalida. Axmed Ismaaciil Xudeydi waxa uu يوبد ولا لا الرنكي متنا اسلك الشنايو اسلك الشنايو اسسيكا اسلك الشنايو اسسيكا انت هاي غنور كي ويلتك سبيرو هذا هاي سكوكاي لدي وربويا
هاي قرامي ومحاطة قرامي ومحاطة سؤال ساسا وناكسن صح قرامي وكان ما أنت تشوغا معها شغل ما كمالها صنعوا أنت وحمقلان بي وحكا لكو كبان قرامي وحل أورنتي قبي لليرو كسو هرتي دا قبيادة تعايل كي رمتها أي سمعيان لليرو داسو وحل أورنتي كبعدنا وحوية كرهاني ير كوك إيو بيرك قالوا شقينية marka heesaha kan inka kuwan qaran u yaqaaniin oo loo yaqaano heelo heesan heelo loo yaqaano magacyo badan bay sidataa waa heelo waa hirwo waa dhaanto waa wiilo waa gooh intaasoo dhan bay sidataa waxaa soo isbedela ugu sameeyey way ka da'weyn tahay heeloodu gabayga ka hor in cabdulla xatan ama raade ugaas baa erayada tan dhaantada ah la isticmaali jiray heestan inay ka weyn tahay anigaa kuuba sheegaya gabayada ninka laga wariyey halkaa reerkaas buu ahaa halkaa degaa geel reerkoodu leeyahay uu dhoobi ka ahaa isagu gabadh adeerkiis dhalay wuu jeclaaday weligaana in adeer guursigu dhagar buu ahaa abaar yar baa dhacday xaggii webigaa loo kacay gabadha waa laysballansanaa waa laysu warhayay oday aan aniga waxba iga yarayn ama igaba weyn oo xoolo wanaagsan haystaa waa jamraday gabadhii marka showballan yar baa dhex yid saddex meelood marka loo qaybiyo qaramiga uu meel leeyahay
naftaydoon waa u daawe nafibaha naftaydoon waa u daawe idaaya maxay ku kiindiraaye idaaya maxay ku kiindiraaye idaaya maxay idaaya maxay idaaya maxay ku kiindiraaye magaalada berbera waxaan dhashay 1900 abril 15keedii waxaa jira wax la yidhaahdo minded sport minded music minded waxaan ahaa markaan dhashayba musical minded waxaa jirta aniga oo 18 jir ah baan durbaanka u sugi jiray cabdilaha markaasaan curious noqdo saasaabsay kabankiisa wuxuu igu yidhi aabbahaa markaad iskuulka ku jirtay muxuu kuu iibiyey waan xasuusnahay waxaan ku yidhi qalin iyo buug hadi kaban iyo riishad iibso haddaad baranaysa kabanada dadkaas ku saataaman maalintii baa niyeeyey inaan kaban iibsado waxaan ku tashaday inaan fanaanka soo baxaya baan macallin u noqdo waxa ugu horreeyey oo aan waxbaray cumar duule waxaan fanka uga hari waayey anigoo dadkaygu inaasiinayaan ba dad caalamka ka mid ah aanu kulannaa markaasay waxaan hay ii sheegaan inta fari i shaqaynayso ilaahayna waan caabinayaa fankaa qarankayga sare u qaadayana waan wadayaa qaar baa jira wadaadaa haddana odhanaya dhaqankiina qaarna seef bay sirtaanoo waa qiyaamihii bay leeyihin waxaan leeyahay dadaalka wada ilaahayna dadkeenna ha tuso waxaad tihiin ilaa dadkaagu ku ogaadaan oo ku dareemaan roogsaamays yaanay niyad shabin ilaa la ogaado waxyihiin laba aabba wada dhalay iyo ubad walaala arrinkii yimaadana isla kaashanayo isa siiyo gacan isla kaashanayo isa siiyo gacan indhahaygu nuurkay ku ildogsadeeno adna haysku kay ladii urhooyahaygu indhahaygu nuurkay ku ildogsadeeno adna haysku kay ladii urhooyahaygu dabarkii adoogay kii laga abuuro naasiyo abaydimo kii la wadaago sideen ku ilooba ma ahaan karas sideen ku ilooba ma ahaan karas indhahaygu nuurkay dogsadeeno adna haysku kay ladii urhooyahaygu indhahaygu nuurkay dogsadeeno adna haysku kay ladii urhooyahaygu
geliyay dib ugu noqo oo ahaa naftu waa amaani askayga geerida aday bodo dhigayo hoygu gacan dambeeyey dhaxalkayga admiga kii ugu dhawaay dhaxalkayga admiga kii ugu dhawaay indhahaygu nuurkay ku ildoogsadeeno adnaha isku kayladine nuur hooyahay indhahaygu nuurkay ku ildoogsadeeno adnaha isku kayladine nuur hooyahay waayaha adduunka ina kala fogeeyo anna kali ahaantay u adkaysan maaye u halkan la tiica isma qaadi kare awalban la tiica isma qaadi kare indhahaygu heestii laga dhuumanayay buu staejka ula soo baxay kifaax weyn buu isla soo maray halkaa barasaabkaa la bedelayo mid kaloo Kenya waayahay irbuugadiyo baan ku yaro wanaagsanaa cadan baa looga yeeray diyaarad buu soo fuulay wuu yimi programkii anna waa la ii baahday anoo aba jeclaa meelaan ku ordayay roobigu eri ayay noqotay kabankii baan faraha ka dayn waayay markaasuu isna xoogaa iga yara markaasaan u qaatay inuu ileeyay baalka iga sitagin markuu arkay niyadda maayo buuri ma doonaysaa inaad barato haabaani mid iibso buu yidhi hadba casharka lagu tuso aada wadwadide marka kanaabu ahaa hubaal gacantaadu hibo gooniya ayay leedahay siba markaan dhageysto habka aad u tunto oo aanad u baahan haba yaraatee qalab kaloo agtaada laga tumo heeso wanaagsan ayaad waagaasi adiga qudhaada waxa laga yaabaa markii aad fanka aad ku weynaatay inaad soo saartay heesahaagii maxaa ka mid ahaa kabanka tumin maan waxaan soo saaray heeska ilaa maanta ugu dhadhanka wanaagsan odayguna goobjoog ka ahaa raaxa iyo heesta la yidhaahdo waayahay markaan kabanka tumayna riftoor iyo heesa lamid ah waxaan jecelahay bal codkaa raaxeeye dad badani inay nagula raaxaystaan ayaan jecelahay marba haddii aad soo hadal qaaday raaxeeye haddaba jaranjaruu soo raacay waayahay maalintii bilowgiisa ahayd iyo markii ku xigtay iyo markii saddexaad imika generationkiisii afraad baa lagu jiraa waayahay mana gaboobayo waad mahadsantahay qabyaaladda afka lagala dagaalama laakiin ficil ahaan gacan weyn baa la siiyaa way adag tahay baashaasi madaxweynihii wuxuu odhanaya qabyaaladdu ha dhacdo isagii baa qabiiliya wasiirkii wuxuu odhanaya qabyaaladdu ha dhacdo isagaa qabiiliya dowladdiibaa waxaa lagu dhisayaa qabyaalad markaasaa haddana
شعارك أما سلمانت أما برسلمامات كايرة هذا لونية قبيلكم هدعو وحوية قبيلكم هدعو ولا قدوا من يا قبيلك لفتي سينا ولا نسيا قوان كأقادين وقوان أذق dadkan sheekaynaya ee qabiilka dhisaya haddana caayaya iyo idinkaydin iskagaynin dhiigga cad baad tihiin dhiigga caddina cudurkuu dilaa kabankan oo dhowr iyo 30 sano jiray oo magaciisa la yidhaahdo sooyaal iga guddoon سلطان dadku waxay tabayaan inaad gacanta dhaqaajiso faraha dhaqaaqaajiso kollayba sayla tahay tan la sugayaa waxa weeyaan inaad hangool ka dhigato oo balsooyeel la sheekaysato in yar oo daqiiqada ah taasaa la wada filayaa horta waxaan idhaahdaa garan maayo ardayna waan ahay waan bartaa kabanka waanan jecelahay runtii laakiin uma jecli inaan masrax ka tumo naftaada ayad shaqeed u raaxaysameen naftayda aad haa ya salaam bahalkan wax badan bida weeyaan indhahaygu mulkay wildogsadeeno adna hayskukay labiney ooyahaygu يا سلام يا سلام يا سلام وديك ديران او ارضيين يعرش فيعن